xiisadda madaxda Mareykanka iyo Canada xaalad gaartay in cashuur xadbeel la isugu hanjabo casubaado muhiim ah la iskala laabto masraxyo caalami ahna la iska weeraro xurgufta Donald Trump madaxweynaha Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Canada Mark Carney waxa loogu yeeray mid ahaan khilaafkii ugu cuslaa ee abid ka dhex urta madaxda labadan wadan ra'iisul wasaaraha Canada ayaa qabtay talada wadankaas 2025 iyadoo goor horeba Washington dagaal ganacsi oo culus kula jirto wadankan Trump cashuur 25% ku soo rogay Canada xaaladuna ay gaartay heer madaxweynaha Mareykanku ku goodinayo inay Canada iska noqoto gobolka 51 ee Mareykanka si uu cashuuraha tirobeelka uga dhaafo imaanshaha kursiga ee kaniga Canada waxa ay sababtay inay intii hore isaga soo dhawaadaan labadan wadan Trump waxa uu mar dhexe sheegay inuu ixtiraam sare u hayo ra'iisul wasaaraha Canada taasoo tustay inuu hagaagsanaa xiriirka labadan nin ka hor inta aan la soo gaarin shir dhaqaaleedkii Davos halka oo mar kale dhinacyadu ku kala dhaqaaqeen ra'iisul wasaaraha Canada ayaa khudbadiisii Davos ee jareenka warbaahinta kasbatay ku sheegay in dunidii Mareykanku hogaamin jiray ay haatan kala daadanayso loona baahan yahay in wadamada awoodda dhexe u midoobaan wax uu ugu yeeray ka hortagga takrifalka kuwa ku tirsan liis quwadeedka koowaad ee adduunka inkastoo uusan kaanay khudbadiisa ku xusin magaca Trump haddana waxaa muuqatay in madaxweynaha Mareykanku hadalkan ninkan si shakhsi ah u qaatay bilowgii isla shirka Davos ayuu Trump ugu jawaab celiyay Mark Carney isagoo yiri Canada ma jirteen Mareykanka la'aantiis sidaas darteed xusuusnow midaas marka xiga ee aad hadlayso maalintii xigtay jawaab celintan Trump waxa uu casuumaadii golaha nabadda qasa ee isagu asaasay kala laabtay ra'iisul wasaaraha Canada halka ay taas xigtay hanjabaad cashuureedda ugu daran ee haatan warbaahintu sida weyn u hadal hayso midaas oo Donald Trump ku sheegay bar internetkiisa Truth Social la yiraahdo oo uu ku yiri haddii Canada heshiis ganacsi la gasho China oo ay siiso dekadu ku rogto badeecada uu dalkaasi doonayo inuu Mareykanka soo geliyo waxa guud ahaan badeecadaha Canada la kulmi doonaan cashuur 100% ah ogow bilowgii Canada waxa ay si weyn uga cabatay oo tilmaantay inay guud ahaan dhaqaalaheeda saameeyeen cashuurihii 25% ahaa ee Trump ku soo rogay badeecadaha wadankan markii uu xilka ku soo noqday taasoo ka dhigan in Canada culays dhaqaale oo aan xad lahayn mar kale wajihi karto haddii Trump ka dhabeeyo hanjabaad cashuureediisa cusub lama oga nooca heshiis ee Trump sida adag Canada uga digayo inay China la gasho hayeeshe waxa la xaqiijiyay in ra'iisul wasaaraha Canada maalmo ka hor Beijing la gaaray jaalnimo istiraatiiji ah oo qusaysa docda dhimista cashuuraha badeecooyinka waxa muuqata in dalalka galbeedka ee cilaaqaadkooda Mareykanku xumaanaya doonayaan cudud kale oo ay garabsadaan booskaas oo haatan loo arko in China oo kaliya ay buuxin karo midaas oo ka dhigan in Donald Trump la fahantiisu arko tartankan cusub amal xumadiisu sababtay ee uu Beijing ka wajahayo taasoo uu doonayo inuu ciqaab cashuureed iyo hanjabaad cududeed ku xalliyo